maryan mursal oo xaalad waali ah ku sugan kadib geeridii ay ka qaracantay saaxiibkeed ninkii ay dunida u jecleyd iyadoo uu lagu cunsuriyeeyay qabiilka gabooye ayaa tahay Axmed Cali Cigaalna kuma qalmo ayuu garabkayga soo istaagay ayay tiri jacaylkii aan waagaas u qaaday aniga oo hadeertaan 95 sano jira ayaan wali jeclahay ayay leedahay waa iyaga oo ubax isku dhiibaya markaan waliba dad waaweyn ah isla markaana wali jacaylkii ilmanimada muujinaya haddaba maama maryan mursal ayaa ku jirta hadeertaan xaalad halis ah kadib geeridii ku timid Axmed Cali Cigaal ubax ayay markaan ku soo dhaweynaysaa balse waxa ay leedahay Axmed Cali Cigaal aniga oo xilligan jooga ayaan dunida ugu jeclahay geeridiisina waa aan ka qaracmay booska oo ii soo galay kaalinta oo ii buuxiyana qof ii buuxinaya malahan magaalada Hargeysa isbitaalka weyn ee Hargeysa ay aad hadeertaan ugu xanuunsanaysa iyadoo oo lugaha ka barartay kuna jirta xaalad halis ah waan ku daalay raadiskaagii qalbigii ku raaca raysan waayay awga iga darrogashada waa markaan asagoo oo aad u amaanaya isla markaana ay gadaashiisa taagan tahay 10 fanaan ayaa ag taagan dhexda fanaaniinta ayuu kala soo baxayaa madaxa ayuuna ka dhunkanaya waxa uu leeyahay waan jeclahay kaligeed ayaana naag u arkaa adduunkana iyada ayaan ugu jeclahay waa kan iyadoo ay wada taagan yihiin isla markaana uu aad u amaanayo haga fiiriyo asal aw jacaylkii hore إلهي قبرك يسوى آمين إن شاء الله إلهي وحنا برينا جنة إلهي إنه جنتي آمين إن شاء الله ندبير بوها إلهي هو يري قبله فنك الصومالي كل شيء حلقة هو بلدي وبري فنانين تأها رقم 4 إنه كهذا دوناي قبل ده بقى لمبر 1 سين لها إذا أوران لها قال لها قبل ده صار لمبر 1 أنا جو وحن سين لها قبل اللي هذا مريم مرسل عيسى ماما مريم إلهي عافية عمرك أنا هود إيري ويناش دور أستعماد بان لمبر 1 كسي أو يعني قد ضخ كواد يقول تعبلها عندك يستو يحبلي هارده كو مريم waxay ahayd halganka nolosh loo galo gaar ahaan hablaha Soomaaliyeed ayay sawir ka bixis hada heesta rafaad la yiraahdo oo ra'yi gaab ha noqon waqtigu ruuxna lama dhalan ay ka mid yihiin erayadeeda ee ay ka waramayso hooyo dunida la halgamaysa oo ubad korsanaysa macnihii hooyo ay lahayd heestaas soo koobtay wahalka nololeed waxa kamid ah heestan ay hablaha Soomaalida ugu heelanaysa rag xil gubayaasha ay uga digayso ee ay leedahay dumarku nacasay iska jiro nin weeyanayay oran nabaadiiniya baxdhaha nagasha Allah haye the feminist edebla bay ahay حتى هذا أهيد بحل جالس هبليها يودو ديسي سي أسلوب لهم بيودو ديسي نعصم بيتري دمركو رجع هيسكتير ما يقرن سيدا كوادا مالها كقاقلية سكودا يعني دمرك سوالي يودو ديا لكن يودو نعص بيتري نعص لأن نعصنا مالنا كمان فعلا حتى آخر هذا بوس كمان وهل قلنا لولاد وحيد قبر ودني أو حلال أو ودني حلال أو صومالي أو حيسة صومالي ودي عيب نفتي نودي عيب dhulkeena dabeecadiisa macnaha dadka u dhex qaad heesaas rayada ma wada haye karaamada badan ay qaad dhanka waqooyiga hees bay u qaada ay taariikhdooda iyo dimuqraadiyadooda kaga hadlayso nabadii Soomaaliya way u qaad isdaaya walaalaya ay qaad ilaa guriga ay ku dhalatay ee degmada Gaalkacay ee xaafadda Yameyska ku yaalay ay leedahay baladkan ku dhashay bartii muduga Yameyskan bartaan u baahnahay meel ay dhaaftay wadaniyad markii la yiraahday difaac wadana ma jirin halgan nololeedna meelna ma dhaafin jacayl isaga warkiisa badaa qodobka saddexaad masraxi bay ahayd boqorada qoobka ciyaarka la oran jiray masraxa markay soo fuushay ninka soo fan wax ka yaqaan 20 iyo cirib baad soo soconaysa intaasoo astaamood oo isbiirsaday bay lambar 1 ku ahay intaaba mid u dheeraaba jiro 60 sano iyo masraxa Soomaalida ruuxaysa qofka talentiga leh hiboolaha waxa lagu yaqaana masaqiiro hada arto qof wax yar intuu suuqa ka jira iska baxa kitaab gaab buu ahaa inta yar u buude ama qof 7 jeer soo noqda tamaalin 3 jeer maalintii toobad keenoo yiraahdo waa ka baxa fankii haddana inagu soo noqday hadaad aragtid
hibadiisaa nuqsi ku jira maaha hiboolo dhaba maaha. laakiin maryan 60 sano ka hor heesta ay qaaday 4 jirkii baan is arkoonay haddana baad iska duubtaan TikTok ay viral ka tahay 60 sano ay jirtaa heesta 60 sano ay jirtaa. marka hiboolay ahayd hiboole waxay ahayd runtii caalami ah ay ahayd oo xataa Soomaalida caalamka ku metishay oo qaramadii midoobay mar ay tahriibka ka digaysay heestan tahriibka ee fanaaniinta geeska Afrika ee xabashi ku jirto ee Soomaali ku jirto Arab xataa ay ku jirto ay ka qayb qaateen gabadhii inagu metishay bay ahayd. Soomaalidu qofku markuu nool yahay ma xasuustaan wanaagiisana ma sheegaan laakiin markuu dhinto un baa waxa qof walba wuxuu iska jecel yahay inuu eray ku darsado. waxaan codsan lahaa dawladaha Soomaalidu maryan inay maamuusaan oo ifka ku maamuusaan aakhira ilaahay bay tagaysaa maamuus idinkeedin kaga baahne intay nooshahay meel suugaameed ugu magac dara madxaf suugaameed ama xarun dhaqan ama maktab taariikhda ummadda lagu kaydiyo. waxaa la yiraahaa Maryan Mursal waxaanan ahaan jiray fanaanad Soomaaliyeed oo qaaliya maantaytana waxa ay noloshaydu ku dambeysay inaan ahay qof Soomaaliya oo qaxootiya wadanka aan ka imid oo la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ahaa wadan weyn oo qaaliya oo qani ah buu ahaa oo wax soo saarkiisa iyo dhinac walba quruxdiisu ay aad isku gudbridan tahay. waxa dhacday marka wadankayaga horta waxaan rabaa halkan inaan horta horeetay kaga muujiyo markii uu quruxda badnaan jiray sidoo ahaa. waxaan kaloo jeclahay inaan idin muujiyo waxa jirta dadkii aniga aan la noolaa oo fanaaniinta oo saaxiibaday ahaa waxay ahaayeen dadkaas fanaaniinta ah ugu yaraan 400 500 oo qof oo ka shaqeysa teatrka nationale kulaha murtida iyo madaalada dadkaas oo maantayta aan qaarkood lahaynin meel ay jiraan dhinteenan qaarna dhinteen qaarna meel ay ku nool yihiin aan caawiyto la ogeyn anigu laakiin aan halkan kaliya haatan soo galay horta iyakan ilaahay waxaan uga baryayaa maartay nolol fiican baan uga baryayaa iyo nabad qab ilaahay inuu siiyo ayaan u baryayaa maxaa la yiraahaa waxaan jecelahay halkan inaan iyagana qarannimadoodii iyo quruxdoodii iyo sidii ahaan jireen sidii u noolaan jireen in halkan iyagana masuurkoodii aan ka muujiyo ayaan jecel